qaybtii labaad ee musalkiina wuxuu ku bilaabanayaa Subin oo Daniel ku dhees adiga halka maxaa ka soo doontay laakiin markii uu ogaato asagana akademiyada inuu ka tirsan yahay xaaladdu ay u dejinaysaa waxayna ku dhees aad iyo ugu faraxsanahay in halka mar kale aan ku kulanno asagana sidoo kale ayuu ku dhahayaa aniga xitaa aad iyo ugu faraxsanahay intaas wixii ka dambeeyna wuxuu weydiinayaa habeenkii ayagoo nabad qaban haddii ay gurigooda ay dib ugu laabteen iyo haddii kale Subin waxay u sheegaysaa habeenkii ayagoo nabad qaban ayda iyo walaasheeda in gurigooda dib ugu laabteen Daniel ayayna ku dhahaysaa aad iyo u mahadsan tahay wixii aataba Subin waxa lagu dhahayaa meesha waa in iskaga tagtaa intaas wixii ka dambeeyna waxa loo keenayaa tiimka ee qolka ee la degi lahayd Subin halkaas ay ku baranaysaa tiimka ee qolka ee la degi lahayd ayadan labada gabar kale wejigooda wanaag ay ka dareemaysay laakiin gabadhan Liman lagu magacaabo ayda xoogaa waa ay ka duwaneed gabdhaha kale calasha inta badan wejigeeda xanaaq ayaa ka muuqday intaas wixii ka dambeeyay waxay soo xaadirayaan xiisad ay bixinaysay Professorad Banga waxayna kala hadlaysay waxyaabaha ku saabsan iskuulkan iyo weli waxyaabaha ay ka baranayaan halkaani intaas wixii ka dambeeyay halka ayaa la daminaya oo project kaliya ayaa la isticmaalaya midaasina ardayda qaarkood ay ga faa'iido ay u arkayaan xiisad intay socotayna qaar ayaa isku hurdayaan Subin ayda qaarkaas ay ku jirtay uu hurdo xun ayaa heysay ugu dambeyntiina xiisadooda ay u dhamaanaysaa ayagoo rabaa inay baxaan dhammaantood waxa lagu amrayaa inay fadhigooda ay dib ugu laabtaan Captain Sami ayaa ku dhahaysa halkan looma imaanin in lagu hurdo idinkana waxaa loo baahan yahay ayay ku dhahaysaa xiisada halkan lagu bixinaya inay dhagaa u lahaataan laakiin waxay ku dhahaysaa dhammaantiin inqaab ayaa mutaysan doontaan si aadan mar kale mida aadan ugu laabanin intaas wixii ka dambeeya waxay amraysaa dhammaan dadkii hurdayaan inay wada istaagaan qof walba is ogayn inuu hurda isagoo uu istaagaya Samina degniin ayay siinaysaa waxay ku dhahaysaa qof walba hurda haddii uu isogaya waxaa loo baahan yahay inuu istaago waxay aataba intaas wixii ka dambeeyay Sami Subin ayay u imaanaysaa waxay ku dhahaysaa adig maadan maqlaynin hadalkayga maxaa u fadhisaa Subin waxay iska soo jaraysaa aniga ma aanan mid ahaan dadku hurdayeen laakiin waxaan ogaan inay Sami ayda inay aragtay Subin mar ay gamaayoonaysay ayda laakiin si dhab ah uma aysan hurdaynin waxay ahaataba ayagana tiimka inqaabta ayaa lagu darayaa intaas wixii ka dambeeyay waa la soo kaxeynaya dhammaantooda waxaana la keenayaa halkii lagu inqaabi lahay waxaa dhacaysa dhammaantooda qaybta dambe in bud laga garaaco taasoo ahayd inqaabta ayaga ee muteysteen sidoo kale waxaan ogaanina halka ayaga lagu inqaabayo kaamira inay ku xiran tahay laakiin kaamirada kama aysan war haynin dowladda inqaabtada markay u dhamaatana Subin waxaa lagu dhahayaa sidoo kalena waxaa leedahay extra training maxaa ilaa amar ayaa jibisay ayaa lagu dhahayaa ayadan weli waxay ugu andacoonaysaa mida inaysan sameynin weliba laga khaldan yahay laakiin ugu dambeyntii waxaa dhacaysa wax walba ayaga lagu inqaabay inay aqbasho saaxiibadeedana waa ila murugoonayeen waxay aataba habeenkii waxaa arkaynaa mid ka mid ah Daniel saaxiibadiisa kuwaasoo qolka la degnaayeen asagana baahi xun ayaa haysay laakiin keligiis ma aysan ahayn oo waxaan ogaanaynaa tiimka oo dhan ayaga baahi inay haysto qof walbana cunto goon ayaa maskaxdiisa ku jirtay niida ayuuna ka dhahay waleetan haddii aa heli lahay ani wax kale uma aanan baahnaa lahayn intaas wixii ka dambeeyay mid ka mid ah ayaa wuxuu soo xasuusanayaa hadaatay toole inuu arkay maamada shaqaalaha ayadoo meel gelinayso fuul tira badan ayagana waxay go'aansanayaan fuulkaas inay soo qaataan intaas wixii ka dambeeyna ayagoo u soo socdaan meesha uu fuulka u yaalay kormeeraha ayaa meesha soo marayo maalinka xiga tababarkooda ayay u soo xaadirayaan riboodka maalinlahana Daniel ayaa gudbinayo wuxuu u sheegayaa kabtankiisa wax dhaawac iyo wax maqan inaysan jirin maalinkaasi ayaga tababar kungufu ayay lahaayeen maalinka tababarka siinayna mid ka mid ah ardayda ayuu soo istaajisanaya waxaana dhacaysa asaga maskiinka inuu kor oo ka keeno haddana mid kale ayuu soo istaajisanaya wuxuu rabay midkaana sidii hore oo kale inuu yeelo laakiin walla macalink markan wuxuu ogaanayaa asaga inuu qaldoomay maxaa ilaa ardayga uu soo kaxsaday weliba baraatikada uu rabay inuu ku sameeyo waxaaba dhacaysa macalinka isaga naftirkiisa in lagu sameeyo baraatikadii uu asaga u rabay inuu ku sameeyo dhammaan ardayda waa ay ku wada qoslayaan ayagana waa ay la yaabayaan tababarkooda markay ay soo dhammaystaan waxay imaanayaan maqaaxida halkaas ayna bilaabayaan inay ku cunteeyaan waxay noqotaaba Subin ayada ugu dambeyntii halkaas waxay ku arkaysaa Yojan intaas wixii ka dambeeyay saaxiibteeda Eri ayay ku dhahaysaa jaakadeeda waa inay soo qaadaa dhanka Yojan markay u soo dhaqaaqdaan ayada gabi ahaanba waa ay ka waanaysaa halkii ay ku aragtay niida ayayna ka dhahaysaa asig maxaa u arkay la ma aanan nasiib u lahayn inaan halkan kula kulmo dhinaca kale Daniel wuxuu ku kordhacaya Erina jaakadaha ayaa ka dhacaya jaakadahaasi mid ka mid ah falash ayaa ka soo dhacaya Erina waa ay ku weeraraysaa falashkan jaakada uu ka soo dhacay intaas wixii ka dambeeyay waxay dilinaysaa jaakada Subin ee leedahay waxay noqotaaba aalamiintadooda ayaa u bilaabanayo mar kale ayagana geerdis ay marka hore isku kululeenayaan waxay aatay inta ay tababarkaasi ku jireen Subin jeebkeeda falash ayaa ka soo dhacayo falashkaasina waxa gacanta ku dhigayo Johnson isla markiiba Johnson taleefankiisa ayuu gelinaya falashka wuxuuna ku arkayaa muuqaal laga duubay habeenkii ayaga la inqaabayay intaas wixii ka dambeeyay Subin ayuu ku dhahayaa maxay tahay falashkan ay wadatay ayadan waxay ku dhahaysaa aniga ma aqaan meesha uu iga imaaday laakiin wuxuu ugu jawaabayaa adiga ayaa ogaan doona meesha uu kaaga imaaday ee waa inay xafiiskayga igu sugtaa ugu dambeyntiina xafiiska ay iskula imaanayaan wuxuuna tusayaa muuqaalku waxa uu yahay wuxuu ku dhahayaa khaladkan si aadan mar kale ugu kicin admissionkaada oo dhan ayaa kansalaya adigana halkaa ma laga yaabo inaad sii joogtid sidoo kale wuxuu ku dhahayaa adiga qolkii ardayda ay degan yihiin kuma laaban kartid waa ka guuraysa ayuu ku dhahayaa meel kale ayaa degaysa ilaa warqadaada ruqsada ee kaaga soo baxayso dhinaca kale habeenkaasi Eri ayaa arkaynaa ayadan dhammaantii waxay dareemaysay inay qalad weyn ay samaysay maxaa yeelay falashka ayada ayaa gelisay jeebka Subin ayadoo u malaysay in ayada ay leedahay dhinaca kale Daniel iyo saaxiibadiisa ayaa arkaynaa ayadana habeenkii xig waxay rabeen mission
mishankoodii xalay toole inay fuliyaan mishankaas oo ahaa maamada shaqaalaha cuntada ee meesha ay gelisay inay kala soo baxaan ugu dambeyntiina waxaa dhacaysa ayaga midaas inay ku guuleystaan maalinka xiga Soobin ayada Ari ay la kulmaysaa waxayna ku dhahaysaa falaashka waxaa laga helay jaagadeyda aniga jaagadeydana ka hor intaadan adiga ku dhiyon falaashku ma aanan ogeen sidee wax jiraan ayay ku dhahaysaa Arin waxay iska soo jaraysaa adiga aniga miyaa iga shakisan tahay laakiin may ayay ku dhahaysaa aniga kaliya waxaa rabaa falaashka meesha uu iga imaaday inaa ogaado maxaa yeelay waqtiyada soo aadan waxa laga yaabaa ayay ku dhahaysaa in laga saaro jaamacadda marka waxa kale waa xasuusaad inaad dib u celiso wax walban aan xalino laakiin Ari waxay u sheegaysaa ayad waxba inaysan soo xasuusan karin weli kuma caawin kara ayay ku dhahaysaa ugu dambeyntiina Captain Jason isagoo xogtooda dhammaystiran wuxuu u soo gudbinayaa Professor Johnson isagoo la jeedadiis waxay ahayd Soobin ayada in laga saaro jaamacadda laakiin Professor ayaa ku dhahaya midaas kuma degdegi karno waxay ahaato baaritaan ayaa ku sameynayna ayuu ku dhahaya waan ogaan doonaa kaamiradan qarsoon meesha ay ka imaaday maalinkaasina xiisada ay lahayeen Ari ayada xiisadaas intay ku jirtay oo dhan waa ay fikiraysay waxayna ka fikiraysay falaashka meesha uu ka imaaday iyo weliba sida ee baxri ugu gashay Soobin xiisadooda markay u soo dhamaatana Ari banaanka Daniel ayay kula kulmaysaa asagana wuxuu ku dhahaya anigu waa ogaay wax walba sida ay u jiraan Soobin jaakadeeda adiga ayaa falaashka geliyay ayuu ku dhahaya sababtoo ah maalinkaas labadeena waa isku korodhacnay labada jaakadna way ka dhaceen laakiin Ari ayada waxay ku dhahaysaa maxaa ka hadlaysaa anigu weli ma aanan fahmin waxayna bilaabaysaa inay inkirto hadaladiisa weliba aanan waxba ka soo qaadin intaas wixii ka dambeeyana isagoo meesha taagan ayay aaga soo tagaysaa laakiin Ari ayada hadalada Daniel ayaa cabsi gelinayaan hadaladaas oo ahaa Janice ayaa haysataa wax walba haddii arunta ay ka sheegi waysay aniga ayaa kugu markhaati furayo Arina ugu dambeyntii habeenkii ayada waxay imaanaysaa Soobin qolkii ay deganay waxayna ku dhahaysaa anigu waxaa rabaa wax walba inaan kuu sheegay sida ay u jiraan falaashkaas aniga ayaa geliyay jaakadaada ayay ku dhahaysaa anigan laba jaakad ay ahayd falaashkaasina mid ka mid ah ayuu ka soo dhacay laakiin ma aanan ogeyn jaakada ee tahay Soobin waxay ku dhahaysaa arrinka marka hore maxay iigu sheegi weysay laakiin Ari ayadu waxay u sheegaysaa inay cabsatay waxayna ka dalbanaysaa inaysan arrinka maamulka guud ee la wadaagin haddii kale halkan waa laga saaraya ayay ku dhahaysaa anigana waxaa rabaa jaamacadda inaan ku waxbarto laakiin Soobin waxay ku dhahaysaa waxaas adiga ayaa lagu dhahaa ugu dambeyntiina waa ay soo bixaysaa ayadoo ratay arrinkan kabtankiina la wadaagto haddana way la xumaanaysaa midaasi oo waxay dib u soo xasuusanaysaa Ari oo oynayso waxayna go'aansanaysaa qaab kale inay u xaliso arrinkani balse silam filan Daniel ayay kula kulmaysaa waxayna la wadaagaysaa wax walba arrinka uu ka soo kordhay maadaama asaga la socday arrinkeeda Daniel ayaana Soobin ku dhahaya ma laga yaabaa jaakadihiina in la kala bedelay adigana haysato ayuu ku dhahaya jaakad aadan adiga lahayn Soobin waa laga yaabaa ay ku dhahaysaa midaas inay jirto intaas wixii dambe waa ay soo baxaysaa waxayna imaanaysaa qolkii hore ee deganaa jirtay si halkan ay wax yar cadeen xitaa ay aga hesho xilligaasi qolka waxaa ku soo wajahnay Leyman ugu dambeyntiina Soobin ayada waxaa dhacayso sariirta Leyman barkinteeda hoosteeda inay ka hesho bahal u muuqda sida jaajarka oo kale laakiin uu yahay kaamira qarsoon Soobin ayada waa ay dareemaysaa qolkiina qof soo furayo weliba uu ku soo wajahan yahay ugu dambeyntiina qolka Leyman ayaa soo galayso aydan waxay arkaysaa Soobin oo meesha oo fadhiso weli wax raadinayso laakiin Soobin Leyman waxay ku dhahaysaa halkan ayaa waxaa ka tagay anigana waa soo doontay Leyman ayada isla markiiba Soobin waa ay ka shakinaysaa waxay rabtay dharka inay iska bixiso weliba dharkeeda jiifka ee seexato laakiin kor waxay u soo dhaqaaqaysaa dhankaas iyo meesha sariirteeda ay taalay intaas kadib waxay fiirinaysaa kaamiradeeda haddii ay meesha ugu jirto iyo haddii kale laakiin waxay ogaanaysaa kaamiradeeda meesha inaysan ugu jirin intaas wixii ka dambeeyay Soobin ayaa kaamirada gacanta ku soo qabanaysa waxayna ku dhahaysaa tani maxay ahayd waa kaamira qarsoon ayay ku dhahaysaa laakiin adiga barkintaada laabkeeda maxay ka sameynaysay Leyman isla markiiba Soobin ayay weerar ku soo qaadaysaa ayadoo rabtay kaamirada inay xoog qaadato Soobin ayada waxay rabtay qolka inay ka soo baxdo waxayna ku guuleysanaysaa qolka inay ka soo baxdo laakiin Leyman ayada waa ay soo bursanaysay waxay noqotay ugu dambeyntii waxa dhacaysa Soobin ayada inay ka soo baxsato ayagoo ordayana ay isla soo galayaan qolkii ay ku jireen kabtanada Soobin dhammaan tiimku waxay u sheegaysaa kaamira qarsoon inay gacanta ay ku hayso weliba ay leedahay Leyman ugu dambeyntiina Leyman waxa la horgeynaya Professor aydan waxay u sheegaysaa midan kaamira inaysan ahayn taleefan ay jeebkeeda ka soo bixinaysaa kan ayaa ku jaajiraysa ayayna ku dhahaysaa dhinaca kale Soobin ayada ugu dambeyntii waxay la kulmaysaa Yojan waxayna ku dhahaysaa aniga ismaanan lahayn asaga ayaa halkan kula kulmaysaa maxaa yeelay maalmo ayaa jooga ayay ku dhahaysaa waana kaa waayay meel walbo waxay aataba Yojan wuxuu ku dhahayaa adiga shaqo wanaagsan ayaa qabatay oo waxa gacanta ku dhigtay qof haysto kaamira qarsoon marka waa kugu hambalyaanaya midaas ayuuna ku dhahayaa mar kale ayaan sheekaysan doonaa intaas wixii ka dambeeyna waa ay soo kala tagayaan waxay noqotay ugu dambeyntii Daniel Soobin ayuu la kulmayaa wuxuu ku dhahayaa waa ku hambalyaanaya maadaama adiga wax walba xalisay aydan asaga aad ugu mahadcelinaysaa maadaama midan uu ka caawiyay dhinaca kale Professor iyo Leyman ayaa arkayna asaguna wuxuu ku dhahayaa taleefankaada hadeertan waa inaad ku jaajiraysaa jaajarka aad leedahay kani waa jaajar Leyman ayada isku day fara badan ay sameynaysaa laakiin waa ay haleeli weynaysaa intaas wixii ka dambeeyay Professor jeebkiis ayuu flash ka soo bixinaya kaamirada ayuu gelinaya waa ay isqaadanayaan asaguna wuxuu ku dhahayaa ma ahan kani jaajar ee waa kaamira qarsoon marka adiga maadaama hooyada ama mobilkan kala hadashay ayuu ku dhahayaa hadeertan iyo waxa rabaa hooyada inaan la hadlo intaas wixii ka dambeeyay Leyman ayada waxay bilaabaysaa hooyadeeda inay wacdo dhab ahaantiina ayada cabsi fara badan ayaa ka muuqday taasoo cadeynaysa ayada qofka ay wacaysa inuusan ahayn hooyadeeda laakiin si wanaag waxaa dhacaysa taleefanka in la dhaho waa uu dansan yahay ayadan waxay iska soo jaraysaa hooyadii xilligan waa ay hurdaysa uma soo
jeedo. Intaas wixii ka dambeeyay Lehman waa la iska soo fasaxaya. Anagana waxaan ogaanaynaa Lehman hawshan oo dhan inuu qof u soo xil saartay ayada. Sidoo kale Professor Ja fasaxadan uu soo fasaxay kama dhignan dembiga gashay oo dhan inuu ka cafiyay weliba sidaas uu soo fasaxay. Ugu dambeyntiina maalinka xiga Lehman ayada saldhigga ayaa la soo taagaya. waxaana lagu dhahayaa qalad weyn ayaa adiga ku kacday kaasoo dhab ahaantii aanan ahayn mid la cafin karo. marka adiga saaxan laga bilaabo jaamacadan waxba kama sii baranayso ayaa lagu dhahayaa oo dibadda ayaa u laabanaysa calaashaan ma laga yaaba askariyad inay noqotid. balse waxaa dhicayso Lehman ayadan arrinkaas inay jawaab ka bixiso. waxay ku dhahaysaa haddii midaas ay dhacdo muuqaalka yar ee aniga heeyo waxaa igu balan social media inaan ku soo fasaxo dhammaantiinana la ogaado dhibaatada ku haysiin ardayda. arrinkaas oo dhammaan xabsi gelinayo hogaankii jaamacadda. waxay ahaataba Subin ugu dambeyntii Lehman ayay u imaanaysaa. waxayna ku dhahaysaa adiga waxaa loo baahan yahay inaa iraaligeliso maxaa ilaahay qalad iyo adiga dartaada u galay. Lehman waxay ku dhahaysaa aniga lama baahna adiga inaa ku raaligeliyo. iraaligelintu waa inaa meel kale u raadsataa. intaas waxay ka dambeeyay Subin ayada Captain Johnson ayay u imaanaysaa. waxay rabtay inay kala hadasho arrinka Lehman weliba ayadu waxay la yaabaneed Lehman oo weli sii joogtay jaamacadda. isagana wuxuu ku dhahayaa taasi anaga ayay inoo taalaa adigana waajibaadkaada gudatay. intaas waxay ka dambeeyay waxaa loo baahan yahay inaadan faraha la soo galin. arrinka Lehman ee ku kacdayna howlwadeenada jaamacadda ayag waxay ku qasbaysaa ayagoo go'aanka gaaristeeda inaysan ku degdegin maxaa yeelay wejiga ay ka filayeen ma ahay weji cusub ayay la imaaday taasoo laga yaabo ayaga dhibaato inay u keento. waxay noqotaaba habeenkaasi training ayay lahaayeen waxayna iskugu imaanayaan halkii tababarkooda uu ka dhacayay. laakiin Captain Johnson wuxuu ogaanayaa dumarka hal gabar inay ka maqan tahay. gabadhaasina Lehman ayay ahayd laakiin Sam ayay soo kaxeynayso. ayadan waxay ku dhahaysaa aniga ma aanan ogeyn caawa tababar inaan leenahay. laakiin Johnson wuxuu u sheegayaa inay inqaab ay mari doonto. fadhiga ku soo ayaa lagu dhahayaa 30 wareeg ayaana samaynaysaa. nasiib xumo midaas waxaa dhicayso Lehman ayada inay awoodi weyso. ugu dambeyntii Lehman istaagay ayay ka dhacaysaa. waa ayna meel doorsoomaysaa isbitaal ayaana loo kaxeynaya. Subin arrinka halay toole oo dhacay isagoona waxba ka maqneen maalinkayaga waxay la wadaagaysaa hogaankii ka sareeyay Professor Ja iyo Professor Banga ayadoo wax walba sida ay tahay u sheegayso. waxayna ku dhahaysaa anigu waxaa u baahanahay Captain Johnson in nagala qabto. markii halkaas ka soo tagtana Daniel ayay kulmayaan. isagana wuxuu ku dhahayaa waxay u muuqataa adigu waxyaabo aan loo baahnay inaad samaysay. haddii wixii ka dambeeyay Johnson wuu ku cadowsanaya ayuu ku dhahayaa. waxayna hotaa ugu dambeyntii tababarkooda ayaa u bilaabanaya. Captain Johnson asigu wuxuu bilaabayaa inuu rakaateeyo ardayda calaashaan xitaa nafis ma siinayo. Subin ayadu waa ay awoodi weynaysaa inay sii wado. intaas wixii ka dambeeyna waa ay soo istaagaysaa. Captain Johnson aad ayuu u xanaaqaya isagoo gacan u qaadi rabo. Daniel ayaa ka soo gaarayo. waxay noqotaa dhammaan ardayda waxaa dhacayso hal erey inay ku wada dhawaaqaan. ereygaas oo ahaa anaga tababar waa qaadanaynaa laakiin ma yeelano dulinimo. musalsalkiina qaybtiisa labaadna halkan ayuu inoogu eeg yahay. intaan ka kulmaynana muuqaalka xiga nabada.